بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan u dabaaldegaynaa 26 Juun oo muddo 59 sano laga joogo maalintii gayii Soomaaliyeed ugu horeysay oo ka xiroobo gacanta gumaysiga. Walaalaheena waqooyiga Soomaaliya ayaa ka xiroobay isticmaalka Ingiriiska si kalgacal maxabo iyo walaaltinimo leh ayay walaalahooda koonfureed oo ka xiroobay isticmaalka Ingiriiska oo la midoobeen 1960kii 1 Juulaay. midnimadaas waxay ku timid kalgacayl iyo niyad wanaag iyo dareen ay walaalaheena waqooyiga Soomaaliyeed ka qabeen in dawlad Soomaaliyeed oo xoog leh oo sharaf iyo karaamo iyo qaran midaysan lagu hoos harsado laguna baadi goobo Soomaali inteeda kala maqan. waxaa dhacday in 30 sano kadib markii ay xorriyadda timid ay dawladda Soomaaliyeed ay duntay walaalaheena ay la noqdeen midowgoodii ka noqdeen ayagoo tabanaya go'asho ka qaba dulmi ka tabanaya laguna dulmiyay magacii dawladdii ay naftooda maalkooda iyo dhiigooda ay u soo hureen. waxaan aad iyo aad uga xunahay dawladda haatan jirta inay muddo 2 sano iyo bar ah qaadin wadadii wada hadalka iridiina wali aysan furnin iyadoo maanta 26 Juun loo dabaaldegayna ay kulankii ugu horeeyay ee walaalaha Soomaaliland kula hadlahayd ay ka baaqatay. waxaan rabnaa inaan dawladdaas dadka Soomaaliyeed loo qabanin mas'uuliyadeedii gabtay. waxaan rabnaa in walaaltinimadii iyo wada hadalkii iyo wanaagii dib loo soo celiyo miiskana la saaro wada hadal dhab ah oo ku salaysan walaaltinimo isku garaabid laga wada hadlo wixii dhacay waxa hadda taagan iyo waxa mustaqbalka soo socda intaba. 59 sano kadib waxaan u baahanahay inaan garowsano inaan dawladnimada Soomaaliyeed negotiation iyo wada hadal inay ku timaado inay qasab tahay oo cid qasbi karta ama cid ku sanduleey karta aysan jirinin. dawlad waxaan doonaynaa dimuqraadi ah sharciga uu sareeyo hay'adahana ay kala baxsan yihiin dastuuriga ah saxaafadan ay xor tahay dadkuna ay sharciga u siman yihiin dhaqaalahana uu yahay mid xor oo ay dadku ku tartamaan. dawlad xoog leh taas ayaan u naqaanaa laakiin maanta waxaan taaganahay kala beyraan u baahanahay inaan dawladnimadeeni dib u negotiate gareyno dib uga wada hadalno dib uga wada xaajoono annagoo isku dhimrinayna isku garaabayna isku turayna wax kastana miiska saarayna mana jirto ismaqoonin iyo maaragtay qasab cid ku keeni kartaa tala kaligeed ku marorsan kartaa. taas ayaan rabnaa inaan ogaano. waxaan ku dadaalnay aabayaasheenii xorriyadda keenay ku dadaaleen inay shantii Soomaaliyeed midnimadeeda raadiyaan dadaalkooda Allah khayr ka siiyo wanaag iyo xasanaadna Allah ugu bedelo. laakiin jiilkeena maanta taagan waxaan ka rabnaa inaan ka miro dhalino inaan midnimadii dib u soo celino wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland daacad laga noqdo dawlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahay oo dadkoo dhan ay qayb ka wada yihiin oo dimuqraadi ah oo sharciga sareeyana inay dhisanto oo ahana qaado ayaa yahay waajibka qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed saaran. ficin waan ka harnay kuwii xorriyadda gadaasheen qaatay iyo kuwii xorriyadda isku mar qaadanay iyo kuwii noogu horeeyay intaba kaaf iyo kal dheer ayaan nahay baac dheer iyo masaafo dheer ayaana noo dhaxaysa. waa inaan taas ka qiiroonaa iskala xisaabtanaa su'aalo adag oo ku hareeraysan dhismaha qarankeenana isweydiina waxyaalaha fudaydka iyo malaayacniga ah iyo xamaaska ah iyo caadifada xagga iska dhigna oo si dhab ah oo saraaxo leh oo taxadiyaadka ama caqabadaha horteena taagan aan uga wada xaajoonaa. taasna waxay u baahan tahay hoggaan hiraal leh hoggaan damiir iyo dadnimo iyo Soomaalina ayaa Soomaali taas u keeni kara. waana mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi